bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawade halkan waa barta YouTube ee galka wararka qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga hadduu rabbi ka raali noqdana waxaa qayb ka noqonaya faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal u dhaxeeya ciidan ka tirsan al-shabaab iyo sidaas oo kale ciidan qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM taliyihii hore ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo Muqdisho ku geeriyooday Roble oo ka shaqeeyay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya farmaajo oo ku gacan seeray arinta Kenya inuu Roble kala hadlo maadaama xiriirka hore uu ugu jaray Kenya qaar ka mid ah dhaawacyada ku dhaawacmay qarxii ka dhacay Muqdisho oo xaaladooda caafimaad laga deerinayo xilli qaar ka mid ah dhaawacyadaas la sheegay in gudaha dalka aan waxba looga qaban karin isla markaana caafimaad ay u baahan yihiin maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah riday daawadayaal intaasi waxay noqonayaan qaar ka mid ah qodobadii ugu door corona warkayaga halkan waa galka wararka haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada iyo sidaas oo kale barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay waxa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku geeriyooday taliyihii hore ee ciidanka asluubta sidaas oo kale geerida Allaha u naxariistay taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ka tacsiyay mas'uuliyiin uu qayb ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo sidaas oo kale qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jiro xubnaha midowga mucaaradka iyo madaxweynayaal hore ee dalka soo maray ayaa wax ay ka tacsiyadeen geerida ku timid Alla naxariistii jannaha siiye taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed Allaha u naxariistay waxa saakay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku geeriyooday taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Cabdiqaadir Cali Diiriye oo loo garan ogay General Subxaanyo oo sidaas oo kale magac iyo sidaas oo kale maamuus ku dhaxlaha bulshada Soomaaliyeed marxuumka ayaa waxaa la sheegay in muddooyinkii aynu ka soo gudubnay uu ku xanuunsanayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana geeridiisa sidaas oo kale ka tacsiiday mas'uuliyiin dhowr ah oo qayb ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare Roble ayaa ka tacsiiyay geerida taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Cabdiqaadir Cali Diiriye qoraal gaar ah uu markaasi ku soo qoray barta uu markaasi ka isticmaala Facebooka naxariistii janna Allaha ka waraabiye General Cabdiqaadir Cali Diiriye Subxaanyo oo ahaa rugcada ciidan iyo sidaas oo kale waaye arag dalka iyo dadka u soo shaqeeyay si daacadnimo iyo geesinimo leh waxaan geeridiisa uga tacsiyeenayaa qoyskiisa iyo sidaas oo kale qaranka Soomaaliyeed ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble geesta kale waxa ka tacsiyay qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta dalka ka jira isla markaana uu ugu horeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qayb ka ah xubnaha markaasi ka tacsiyay geerida ku timid Allaha u naxariistay taliyihii hore ee ciidanka asluubta qoraal gaar ah oo markaasi ku soo qoray bartiisa gaarka ee uu ka isticmaalay Facebooka ayuu kaga tacsiyay waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa qoyska reer Cali Mire saaxiibada iyo sidaas oo kale saraakiisha ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka asluubta geerida ku timid Allaha u naxariistay General Cabdiqaadir Cali Mire Diiriye oo loo garan ogyahay Subxaanyo oo ka mid ahaa bundigayaashii ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Subxaanyo waxa uu ahaa samafale wanaagsan dadkiisa iyo sidaas oo kale dalkiisa jecel waxa uu ahaa bashaas ayuu sidaas oo kale qoraalkiisa ku soo qoray xubnaha ka tacsiyay ayaa sidaas oo kale waxa qayb ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee soo maray Soomaaliya ayaa sidaas oo kale ka tacsiyay qoraal uu ku soo qoray bartiisa gaarka ah ayuu ku cabiray dareenka ku aadan geerida madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidaas oo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay si wada jir ah kaga tacsiyeen geerida ku timid taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed
qaar ka mid ah xubnaha sidaas oo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiiyay geeridiisa. markan waxaynu aadi doonaa Jubbada Hoose. faahfaahinno dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ay ku leeyihiin deegaan hoostaga Jubbada Hoose, gaar ahaan ciidanka Kenya. dadka deegaanka waxay sheegayaan in halkaas khasaare xoogan uu ka dhashay weerarka iyo sidaas oo kale dagaalka u dhaxeeya labada dhinac. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ku dhexmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika AMISOM xubno ka tirsan Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidanka Kenya ka tirsan, gaar ahaan kuwa qaybka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Kulbiyow oo hoostaga gobolka Jubbada Hoose. waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. dadka deegaanka Kulbiyow waxay sheegayaan inay maqlayeen dhawaqa rasaasta oo ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaaro markaasi ka dhalan karo maadaama dagaalku uu ahaa mid saacado qaatay, isla markaana dadka deegaanka ay maqlayeen dhawaqa iyo sidaas oo kale gurdanka mararka qaar risaas culus oo isku adeegsanayeen. sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahday inta uu dagaalka socday, maadaama ay ka baqdin qabeen inay waxyeelo ka soo gaarto dagaalka halkaasi ka dhacay. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Kulbiyow waxay sheegayaan in markaasi ciidanka Kenya ee markaasi deegaankaasi markaasi fariisinka ku lahaa in dagaalka kadib ay markaasi soo baxeen, isla markaana ay sameeyeen howlgallo ballaaran. waxayna soo qabteen tiro dhalinyaro ah oo ka agdhowaa goobta markaas dagaalku ka dhacay. markan maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay riday xukun dil ah. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday nin dil iyo dhac ka geysan jiray deegaanka Jasiira duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Abuukar Macalin Axmed Hilowle oo markaasi loo haysto dhac iyo dil uu u geystay marxuun Axmed Cali Nuur 19kii Maaj sanadkan, isla markaana dilkaas uu ka dhacay Jasiira. ciidamada deegaanka uu markaasi ku soo wareejiyay hay'adaha dambi baarista booliska CID ayaa iyana baaritaan dheer kadib ku wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee markaas dabayaaqadii Maaj. isla xilligaas xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa codsaday in eedeysane Abuukar Macalin Axmed Hilowle loo dhaadhiciyo xabsiga, sidaas oo kalena markaas ciidamada lagu wareejiyo garsoorka ciidamada qalabka sida ee markaasi xafiiska xeer ilaalinta ciidanka ayaa intaasi kadib xabsiga u taxaabay 1 Juun ilaa iyo sidaas oo kale 15 Juun sanadkan ayaa la kala fariistay 2 fadhi oo dhageysiga maxkamadda qaatay. waxa ayna dhinacyada markaasi soo bandhigeen fadhiga maxkamadda, isla markaana ay kaga hadleen arinta eedeysanaha ayaa marxuunka oo markaasi damaashaad u tegay Jasiira isku dayay inuu dhac u geysto, laakiin sida maragyada qaar ay sheegayaan marxuunka oo ku adkaystay in uusan taleefankiisa dhiibin maadaama uu aaminsanaa in lagu dhici karin xeebta loo dalxiis tago ee Jasiira. waxaa sidaas oo kale saaxiibadiis maalinkaasi la damaashaad tagay ay u sheegeen garsoorka in marxuunka kadib uu markaasi eedeysanaha isku dayay in uu baxsado isaga oo riday, isla markaana halka dagaal ku galay. Dhamme Ismaaciil Salaad Maxamed oo markaasi xigeenka xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida u sheegay garsooraha in eedeysanaha uu markaasi dilka u geystay si ku talagal ah, isla markaasna uu isku dayay inuu baxsado. sidaas darteed ayaa xukun markaas wax uu ka codsaday garsoorka in lagu xukumo in markaasi xukunkiisa uu noqdo qodobka ay markaasi eedeysane Abuukar Macalin loo soo jeediyay. maanta ayaana xukunkaas waxa uu noqday mid lagu fuliyay. geesta kale waxaynu u jaleeci doonaa dhanka iyo Koonfur Galbeed. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagreen ayaa maanta furay kalfadhiga saddexaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah golaha wakiilada Koonfur Galbeed, mas'uuliyiin hor gobol iyo heer degmo ee gobolka Bay, saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM. kulankan oo inta badan markaasi ay ku sugnaayeen xildhibaanada
deegaanada koonfur galbeed ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guddoonka golaha wakiilada, mas-uuliyiin kale iyo goobjoogayaal. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Laftagareen oo hadal kooban ka jeediyay munaasabada furitaanka, isaga oo markaasi dardaaran u jeediyay golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Arinta ugu badan ee markaasi Laftagareen uu kala hadlay waxaa qayb ka ah sida deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya looga xureyn lahaa al-shabaab. Daawadayaal, guud ahaan warkii oo aad kala socoteen galka wararka waa naga inta waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. Haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay barteena YouTube, waxaynu si naxariis la kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto. Daawada si mar waliba aad u hesho wararka, warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino.